بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa da ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamza Cabdi Barre oo garabkayga midigta taagan. waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Xamza ayaan u gartay in uu yahay qofka ku habboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba. ra'iisul wasaaraha cusub aniga oo dardar gelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaanan kula dardaarmayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kuna mashquulo aadna oo u howlgeliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga, gurmadka abaaraha, heshiisiinta, horumarinta bulshada, ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed, isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale, isaga oo ka tallaabsanaya hal heeskeenii ahay Soomaali heshiis ah dunida